bilowga filimkeena wuxuu ka bilaabanayaa 2 gabdhood iyo 3 wiil. Gabadha ugu horeysa waxaa lagu magacaabaa Barobo. Si lama filaan ah iyadoo gurigeeda joogto waxay maqashay garaaca iridda. Waxay aragtay dad badan oo wata ubaxyo iyo buufin. Hordhac waa farxadda maalinta jaceylka, balse waxay ogaatay inay adrees qaldan wataan. Isla markiiba waxay ku laabatay qolkeeda. Iyadoo niyad jabsan waxay ku dhaaratay maanta inay gurigeeda ka bixi doonin. Si kastaba ha ahaatee in yar kadib waxaa soo wacday saaxiibteeda Wawa. Waxayna u sheegtay gurigeeda inay ku ilowday boorsada ay ku jirto lacag badan. Baroba oo ah magaca gabadha filimkeena ku bilowday ayaa u soo dhaqaaqday dhanka Wawa si ay u siiso boorsadeeda, balse si lama filaan ah waxay u aragtay lamaanayaal aad u badan kadibna waxay dareentay murugo badan. Sababtuna waxay tahay inaysan weligeed helin lamaane ay ku qanacsan tahay. Nimankuna had iyo jeer way iska indhatiraan iyada. Haddaba nin dhalinyaro ayaa ka soo horbooday horteeda isagoo aad u qeylinayo. Ugu dambeyn waxay la kulantay saaxiibteeda Wawa, waxayna u sheegtay inay maanta aad u qurux badan tahay. Wawa ayaa ku jawaabtay saaxiibada had iyo jeer way qurux badan yihiin. Muuqaalkeena xiga Baroba iyadoo socoto waxay aragtay Buubo, wiil lagu magacaabo oo diiday hadiyada loo keenay. Baroba iyadoo socota si lama filaan ah waxay ku dhacday Buubo, wuxuuna ku dhahay weliba si kibir ku jirto gabar yahay kama aqbalayo wax hadiyad ah maadaama uu isagu isku haystay wiil aad u qurux badan inuu yahay. Kadibna Baroba waxay ku jawaabtay hadiyad inaan ku wado waxaa ka horeysa inaan ku aqaano. Dib waxay u sheegtay inay isaga dan ka lahayn wayna isaga tagtay isagoo si aad u fiirinayo. Baroba markii hore wiilkan inay aragto aad ayay u jecleed, balse hadaladii uu ku dhahay darteed ayay ka xanaaqday. Baroba waxaa ku amuurmay naceeb aan xad lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah Baroba iyadoo suuqa soo aaday waxay aragtay Taar. Taarna waa saaxiibkeedii ugu dhowey isku kuleejka ahaan jireen. Way naxday waxay aragtay Buuba iyo Taar oo isla joogaan. Baroba waxay u imaatay Taar, waxayna weydiisay Buuba wuxuu agtiisa ka qabanayo. Taar wuxuu ku jawaabay Buuba inuu yahay saaxiibkiisa. Baroba ayaa isku dayday inay raarigeliso Buuba ayaa ku jawaabay si isla weyni ku jirto, wuxuuna dhahay hadalkaaga wax qiimo ah iguma fadhiyo. Baroba ayaa mar kale aad uga xanaaqday hadalka uu ku dhahay Buuba. Kadibna Baroba way soo baxday baaskiilkeeda ayay soo raacday. Gurigeeda ayay soo aaday. Baroba oo niyad jabsan waxay wacday Wawa, waxayna ku balamisay cashada. Baroba ayaa timid goobta cashada. Dadkii meesha joogeen waxay ka sheekeynayeen quruxda Baroba. Ugu dambeyn filimkeena waxaa soo galay wiil lagu magacaabo Damuur. Baroba Damuur waxay ku balamisay xeebta badda, wuxuuna arkay iyadoo xeebta taagan isagoo si naxariis u fiirinayo. Kadib Damuur wuxuu dhahay Baroba wax ma kuu sheegan karaa? Haa ayay ku jawaabtay. Wuxuuna u sheegay inuu aad u jecel yahay, uuna doonayo inuu naftiisa u huro. Baroba ayaa si jeejeesa ku dhahay Damuur oo miyaadan ogeyn saaxiibtinimada weli inaan isticmaalayo. Isku iloob inaad jecel ii qaado oo reedi qof kale oo daacad kuu noqdo adiga. Damuur ayaa aad ugu xanaaqay hadalkeeda, kadibna goobtii ayuu isaga tagay. Muuqaalkeena qaybtiisa labaad wuxuu ka bilaabanayaa Taar iyo Wawa oo xeebta wada fadhiya. Intaas kadib laba lamaane waxaa arkaysa Baroba, kadib waa ay la seeraysaa sababtoo ah Baroba ma haysato qof jecel iyada. Labada lamaane Taar iyo Wawa gadaashooda waxaa fadhiya Damuur oo murugaysan. Waxaa si kadisday ugu imaanaysa Baroba, waxayna leedahay Damuur maxaa ilaga ku fadhiisiyay. Damuur wuxuu ku jawaabay hadalkii aad igu dhahday ayaan ka murugaysanahay. Kadib Baroba ayaa ka raaligelisay Damuur hadaladii qadada ay ku dhahday. Baroba Damuur waxay ka codsatay inay israacaan maadaama ay ka masirtay labadii lamaane ee hore ee Taar iyo Wawa. Lamaanihii koowaad ee Taar wuxuu arkay Damuur iyo Baroba oo sheekaysanaya, kadibna wuxuu ag imaaday xaggooda si jeejees ku jirtana wuxuu ku dhahay lamaanaha beenbeenta isku bahaystay miya. Hadalkaasna waxaa ka xanaaqday Baroba waa atriishada filimkeena. Taar intaas kadib wuxuu u hanjabay Damuur. Damuur iyo Taarna markii hore waxay ahaayeen saaxiibo. Taar wuxuu u qaatay Damuur inuu jecel kala dhaxeeyo gabadha lagu magacaabo Baroba. Intaas kadib Taar wuxuu Damuur ugu hanjabay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu meesha isaga tago. Baroba ayaa ka xanaaqday hadalka Taar, waxayna gacanta ka soo qabatay Damuur, kadibna waa ay soo dhaqaaqeen. Maalintii xigtay waxaa hal meel ku wada kulmay Taar, Damuur, Wawa, Buuba iyo Baroba. Taarna wuxuu dheelayay ciyaar basketball ah. Markay ciyaarta soo dhamaatay una soo guuleystay wuxuu ag imaaday Wawa. Taar wuxuu garabka ka qabsaday Wawa, sidaasna waxaa ku masirtay Baroba. Intaas kadib Baroba waxay u yimaadeen Taar, waxayna weydiisay waxa ka dhaxeeya labadooda. Taar ayaa si jeejees ku jirto ku dhahay gabadhan sida adiga oo kale doqon uma ahan ee naga hor dhaqaaq. Intaas kadib Baroba waxay dareentay qalbi jab, goobtii ayayna iskaga dhaqaaqday maadaama ay iyada la'saneed qof jecel. Baroba waxay go'aansatay markaan inay jirin wax u dhaama wiilka lagu magacaabo Damuur. Baroba waxay damacday Damuur inay ka raaligeliso hadaladii qaldanaa ee ku dhahday. Isla goobtii iyadoo tagan waxaa soo daayay roob, laakiin si lama filaan ah waxa uu imaaday Damuur oo dalad wata. Si naxariis ku jirta ayuu daladii roobka uga celiyay, wuxuuna u sheegay inuu mar kale jecel yahay iyadana sidaas ayay farxad ku dareentay maadaama ragga inta badan ay qalbiga ka jebin jireen iyada.
Boroba markii ugu horeysay Damuur waxay u sheegtay inaysan wax jecel aysan u qabin isaga, balse maanta wax kasta way isbedeleen. Boroba waxay dareen xad dhaaf ah u qaadeen Damuur. Maalintii xigtay Boroba waxay balansatay Damuur. Damuur ayaa imaaday goobtii lagu balamiyey. Boroba Damuur waxay u sheegtay xaafadii hore ee degneyd inay ka guuri doonto. Intaas kadib waxay ku soo laabatay gurigeeda waxayna balamisay Damuur. Kadib marka ay seexatay saqdii dhexe habeenkii iyadoo hurdaysa waxaa soo gashay naag lagu magacaabo Tugta. Naagta lagu magacaabo Tugta waxay isku dayday inay garaacdo tiriishada filimkeena Boroba. Naagta lagu magacaabo Tugta waxaa soo dirsadeen Taar iyo Waawa oo ahaa lamaanihii hore ee khiyaanolayaasha ahaa. Dhowr daqiiqo kadib waxay maqashay buuq yaab leh oo ka soo baxaya jikada, taasoo sii cabsi gelisay Boroba. Boroba isla markiiba waxaa gadaasheeda ka soo baxay Damuur oo ay hore u balamisay. Damuur ayaa si lama filaan ah Boroba dhexda kaga qabsaday, iyadana si lama filaan ah ay dharbaaxsho ugu dhufatay. Isla markiiba way naxeen, maadaama Boroba ay u maleynaysay tuug guriga inuu soo galay. Gabadha lagu magacaabo Tugta oo damacsaneyd inay garaacda Boroba ayaa isla markiiba baxsatay. Damuur ayaa Boroba ku dhahay, kaalay macaan, kadibna way diiday inay agtiisa imaado, isagana kama yeelin waa uu soo istaagay. Kadibna Boroba way ka tagtay Damuur, qolkeeda ayay gashay, wayna seexatay. Damuur ayaa Boroba qolka ugu soo galay iyadoo hurdaysa, kadibna wuu xambaaray, qolkiisa ayuu geystay. Labadeedana halkaas ayay wada seexdeen. Subaxii marka ay soo tooseen, Boroba ayaa ku dhahday Damuur, xalay qolkayga ayaan jiifay, halkan ayaa i keenay. Damuur ayaa iska indhatiray hadalkeeda, wuxuuna u sheegay cawada inuu xaflad u wadi doono. Kadib xafladii marka ay imaadeen waxay meesha ku arkeen Taar. Taar wuxuu u sheegay Boroba inuusan kaligiisa ahayn ee Waawa xafladda uu ku balamiyey. Kadib waxaa bilaabatay dheesha xafladda, waxayna noqotay qof walba iyo lamaanihiisa. Taar ayaa xafladda ku cidlooday, wayna ka soo dahday Waawa. Boroba iyo Damuur oo jawi qaadanayeen waxa uu imaaday Taar. Intaas kadib Taar wuxuu bilaabay inuu dagaal sameeyo, eejina ku qabto Damuur. Ku soo dhawaada taxanaheena qaybtiisii saddexaad. Aan dib idin xusuusiyo qaybteennii labaad. Qaybteena saddexaad wuxuu ka bilaabanayaa Taar oo hanjabaya Damuur. Taar wuxuu Damuur ku dhahay haddii aad ka soo ag dhawaato Boroba saakun garaacay wejiga ayaan kaa bedelayaa. Kadib Taar ayaa meesha isaga tagay. Boroba waxay raaligelisay Damuur, waxayna ku dhahday Damuur oo karaale noqo Taar wuxuu kugu sameeyey. Maalin maalmaha ka mid ah Boroba Taar ayay suuqa ku aragtay. Taar ayaa isla markiiba raaligelin weydiistay Boroba, wuxuuna ku dhahay aad ayaa lagu xumahay habeenkaas wixii dhacay. Wuxuuna u sheegay habeenkaas inuu cabsanaa. Intaas kadib Boroba ayaa ku jawaabtay Taar oo waxaad tahay xaasid oo saaxiibkiisa waxna aan u quurin. Iyagoo isla hadlaya Damuur ayaa goobta imaaday. Wuxuu arkay Taar, wuxuu soo xasuustay dagaalkii xafladda ka dhacay habeenkii. Taar ayaa ku jawaabay Damuur oo mar kale saaxiib ma noqon karnaa. Laakiin Boroba ayaa ku jawaabtay xaasidoo weli kala geynteena ma diyaar u tahay. Boroba ayaa Taar u digtay, waxayna ku dhahday ha isku dayin inaad qalad dambe gasho. Boroba Damuur ayay ku qasabtay inuu la saaxiibo Taar. Intaas kadib Damuur ayaa xanaaqay, wuxuuna dhahay Taar saaxiib ma noqon karno. Goobta ayuuna isaga tagay. Kadibna gurigiisa ayuu imaaday. Damuur waxaana soo raacday Boroba, waxayna ku dhahday Damuur maxaad u diiday heshiiska. Damuur wuxuu ku jawaabay Boroba hadalkaas haddii ay kaa maqlo xiriirkeena ayaan jari doonaa. Maalin maalmaha ka mid ah Boroba waxa uu imaaday Damuur, wuxuuna u sheegay inuu shaqo helay, haddii uu mushaar fiican u helay inuu guursan doono, maadaama xiriirkoodu uu aad u daahay labadan lamaane. Damuur waxa uu siiyey Boroba katiinad loogu talagalay iyada. Maalintii xigtay Damuur oo shaqada jooga waxa uu imaaday Boroba hooyadeed, waxayna u sheegtay gabadheeda inaysan u qalmin isaga, waxayna ugu hajabtay mar dambe agteeda inaysan ku arki doonin. Damuur ayaa aad ugu murugooday hadalkaas, maadaama Damuur uu damacsanaa inuu guursado Boroba. Si kastaba ha ahaatee Damuur wuxuu u tagay Boroba, wuxuuna u sheegay hadalkii ay ku dhahday hooyadeed, wuxuuna ku dhahay hooyada xiriirkeena inuu sii socdo ayay diidan tahay. Kadib Damuur wuxuu soo waday Boroba, wuxuuna keenay gurigiisa. Ayagoo isla fadhiya wuxuu u sheegay inuu aad u jecel yahay iyada. Damuur ayaa si kadis ah Boroba u qaaday hees aad u bacaan, iyadana ugu talagalay. Boroba ayaa aad uga heshay heesta oo ugu talagalay Damuur, waxayna u sheegtay codkiisu inuu ka qaalisan yahay dheemanka. Waaw, labadan lamaane erayo miisaan leh ayay adeegsanayaan. Isla habeenkaas guriga iyagoo jooga waxaa imaanaysa Boroba hooyadeed, waxayna Damuur ku dhahday doqon yahow weli gabadheeda miyaad daba socotaa. Boroba ayaa isku dayday inay hooyadeed dejiso oo ay la hadasho. Boroba hooyadeed Beeri waxay ku hanjabtay inay Boroba iyada xitaa guriga laga saari doono haddii ay hadalka sii wado. Intaas kadib Boroba hooyadeed Beeri ayaa guriga xoog ugu saartay labadan lamaane. Subaxii xigay Boroba walaalkeed ayaa weydiiyey Boroba waxay la murugaysan tahay, waxayna ugu jawaabtay jacayl dambe inay samayn doonin.
maadaama ay weysay saaxiibkeedii hore ee Damuur. Si kastaba ha ahaatee, walaalkeeda ayaa u sheegay inay sabir badan muujiso, jaceylka hadda ay ku jirto inuu ka qiimo badan yahay midka waalidka. Maalintii xigtay, Barooba ayaa warqad u qortay Damuur, waxayna ugu tagtay xafiiskiisa shaqada, waxayna u sheegtay inay mar dambe la kulmi doonin isaga. Jaceylka ay u qabtana uu ka muhiimsan yahay midka waalidkeeda. Intaasi kadib, Barooba ayaa goobta isaga soo tagtay. Si kastaba ha ahaatee, maalin maalmaha ka mid ah, Barooba iyo aabbaheed oo isla socda waxaa arkay Damuur. Intaasi kadib, Damuur wuxuu u imaaday Barooba aabbaheeda, wuxuuna u sheegay Barooba inuu aad u jecel yahay uuna doonayo inuu guursado, laakiin Barooba hooyadeed inay u diidan tahay gabadhiisa. Odayga ayaa Damuur ku balmiyey gurigiisa. Intaasi kadib, odayga gabadhiisa ayuu wacay, wuxuuna u sheegay inuu erayadeeda u rumayn doono, waxuuna u fasaxay inay aadi karto dhanka Damuur. Barooba ayaa ku faraxday hadallada aabbaheeda. Maalintii xigtay, Barooba waxay Damuur u sheegtay inay lamaano weligood jiro noqon doonaan. Damuur hadalkaas wuu ku farxay. Waxaa isla goobtay imid Barooba hooyadeed, walaalkeed iyo aabbaheed, waxayna canaanteen iyada. Damuur ayaa aad ugu naxay. Wax yar kadib, Barooba hooyadeed ayaa si kadis leh u qosashay, waxayna u sheegtay faraantigeliskooda inuu beri dhici doono. Dhammaantooda la yaab ayay ku noqotay, lamaanihiina waa ay yaabeen. Waxaasna waxaa ka dambeeya Barooba aabbaheed oo hore ugu balmiyey Damuur, iyadana dhanka Damuur inay soo aado waxaa u soo fasaxay aabbaheed. Dhammaantoodna waa ay ku farxeen. Subaxii xigtana, faraantigeliskooda ayaa meesha ka dhacay. Damuur ayaa aad u qiray jaceylka uu qabo Barooba. Daawadayaal, filimkeena xiisaha iyo xamaasadda watay halkaas ayuu noogu dhammaaday. Aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. Waad ku mahadsantihiin habka wacan aad inoo dhiirigelinaysaan. Ma jiraa filim aad jeclaan lahayd inaan kuu soo khulaaseeno? Qaybta hoose noogu reeb.